isu gartay saaxiibkii meherka markuu dhacay oo caabta tagi oo lagu rabo in la xiray bariis qabto waxaa dhacday in la kashafay siyaabo ka duwan baa loo kashafay waxaan kala ogaaday Soomaalida inuu ma garanayo walaa ma garanayo wallahi horta Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu quraankiisa dhadhamara darara haladnaanshaha dhacdhacaaga urursada Soomaaliyey sidan xaq miyaa xeer miyaa ma diinta islaamkaa sheegaysa waa maxay waxaanaynu ku dhaqmaynaa nin caruusa oo habeenkii ay ugu farxadda badnay adduunka ku jira oo u aalamiintaynaya inuu noloshiisa la wadaago marwadiisa uu adduunka ugu jecel yahay haweenka Soomaaliyeedna uu kala soo dhex baxay in habeenkiisii ugu horreeyey ee arooska xilligii uu dhammaaday markii uu aqalkiisa qolkaysii soo gal oo gabadhiisa aad is aragtaane in askar la dul keeno oo xaasidnimo lagala duldhaco qodobkee ayaa sheegaya dhaqanka Soomaaliyeed in nin Soomaaliyeed waxaa lagu sameeyo aar Soomaaliya xun iyo xaasidnimo ayay habeen iyo maalin ka shaqeeyaan inta caalamka kale ay farsamooyin kale raadinayaan dayax gacmeed cirka u dirayaan daawooyin raadinayaan cusub Soomaaliduna hebel ka ciidee raashika oo qalindaar ka naxi ka xanaaji iyo farxin iyo wixii la mid ah ayay ku jiraan maanta maxaa cusub fanaaniintu iskuma jiraan fanaankeenii Soomaaliyeed ee fanaaninta ugu mudnaa waa Safwan Halac ee bulshada Soomaaliyeedna dhagahooda la lahaa muddo badan ay ku raaxaysanayeen heesahooda jacaylka ayaa maalintii xalaytaa lala booday hawadana lagu dubtay waxaad markiiba isweydiinaysaan Safwan in la qabtay yaa sabab u ah ma nin caddaana ma nin Nigeeriyaana ma nin Gaanaysa jawaabtu waa maya nin Soomaaliya oo ay sheeganaya inay isku diin iyo dhaqan yihiin ayaa sabab u ah in maalintii xalaytaa ahayd farxaddiisa laga jiido Safwan Halac oo xabsiga lagu hubsado Safwan Halac waxa uu maalintii habeenkii xalaytaa ay ku dhigtay caasimadda Sweden ee Stockholm arooskii qarniga oo bulsho fara badan oo Soomaaliyeed ka soo qayb galeen oo ay isaga yimaadeen magaalooyinka iyo deegaanada Sweden iyo weliba waddamada qaaradda Yurub iyada sidii loo wada raxlaynayay heesaha jiinta iyo jaamta la isula jabinayay qosolkana jeclaysaga siinayay jacaylkana loola jilayay farxaddana loola qaybsanayay lamaanahan qarniga ayaa markii hawshu soo gabagabowday la yidhi aroos lagamana raaga lagumana raagee ha loo kala dhaqaaqo lamaanahan si kunkun ugu wada dheelaan gogashooda maxaa dhacay farxaddii miyay heleen mise waa laga jiiray bal in yar ila dhagayso fanaankan ka mid ah fanaaninta reer Sweden oo aad uga murugsan waxaa ku dhacay Safwan Halac iyo farxaddiisii laga jiirayba ila soo dhagayso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته horta marka hore waan salaam kulliga markasta joogtiin akhbaar baadin hayaaw horta marka hore waxaan taa hal maleynaa saaxiibkii Safwan Halac fanaankeyga iyo dumaashadii sooda oo arooskooda caawa oo ku dhacay dalkan aan joogo Sweden gaar ahaan magaalada Stockholm hambalaas kadib waxa isu gartay saaxiibkii meherka markuu dhacay oo caabta tagi oo lagu rabo in la xiray bariis qabto information badan aan raadiyay because goobta ma joogo aniga waa jeclaan la aaday laakiin arrimo la andilin waxaa dhacday
in la kashafay siyaabo ka duwan baa loo kashafay waxaan kaloo ogaaday soomaalida inuu ma garanayo walaa ma garanayo wallah horta ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu qur-aankiisa ku yiri xaasidina idaa xasad aayad mid kasta caadi waa yeelan karaa laakiin habeenka ugu horeeyo ee noloshaada oo caroos aad tahay in la kashafo in la boliis la waco oo la dhaho ninkaa raadinaysiin meeshaan uu ku jiraa hala qabto aad ugu xumaa wallah xaasidina idaa xasada maqadir markaas ninka saasaan lagu qabtay oo xariya hadda gabadhii aroos keligeed ayaa maaragtay ayadoo furugeysan samana waxaa la wadankeena suudigaa wadankeena waday karo xaasido inaan joogo maxaa laga xaraa miskiinkaas saaxiibkeena safwaan oo arooskiisa lagu babaajina oo loo kashifaa safwaan halac markii qolka hurdada uu soo galay waxaa u soo gasho albaabkiisa ku soo garaacday raxan ciidanka booliska waddankii swidhen gaar ahaan stokholma kabacdina waa ay kaxeeyeen maxaa lagu haystaabaa dad badan isweyddiinayaan maxaase ku dhacay mooji wararkaa waynu sugaynaa laakiinse arrinta booliska iyo ciidanka meeshaa yimiba waxaa sabab u ahaa rag soomaaliyeed oo soomaali sheeganaya iyagaana yidhi ninkii aad raadinayseen waa safwaan halace kaale halkan ayuu ku guursanayaa ee soo qabta waxaa iga su'aala markaad safwaan halac xidhay xabsiga aad soo dhigtay ma marwadiisa ayaad gogasha ugu tegaysaa ma farxaddiisii ayaad helaysaa ma duunya ayaa kaa soo gelaysaa anigu waan fahmi waaye horta soomaali maxaa ka khaldan caqligooda sidee ayuu u shaqaynayaa xaasidnimada noocan oo kale ah xaggee lagala yimi anigu yaabaye waxaana ka sii daranba soomaali marka ay qurbaha yimaadaan inta diirka soomaaliga hadda soomaali iyo soomaali kala saar soomaali waa qoomiyadda soomaali laysku yidhaahdo magaca soomaali iyo luqadda soomaali intay isugu hiilin lahaayeen oo midba midka kale garabkiisa isku taagi lahaa ayaa wuxuu odhanayaa kani muqdishuu ka soo jeedaa kani hargeysuu ka soo jeedaa kani jigjiga ayuu ka soo jeedaa kani gaarisa ayuu ka soo jeedaa maxaa iiga qidhiisha innaa lilaah war miyaanad ogay qoomiyadda mandhiinga la yidhaahda oo degtaa burkina fas gini maali gambiya senegaal inay soomaali la siman yihiin haddana shantaa waddan bay degaan ogsoonow shantaa waddan iyagoo kala degaa qoomiyaddaasi haddii nin gaambiyaana maanta qof wax ka sheego ama nin caddaana ay swidhen isku qabsadaan kumannaan senegaal iyo maali ka soo jeeda ayaa u hiilinaya haddaba soomaaliya idinka maxaa inugu dhacay hiila isu tartaan iska daaye ma idinkaa ciidankii booliska waddanka swidhen isu soo hoggaaminaya alla xaasisana haddaba arrintaan aadkagu murgay ee weliba aan warbixin faahfaahsan aanan ka hayn waxay tahay safwaan halac ciidanka booliska swidhen maxay uga baahnaayeen maxaa kaga maqnaa waa fannaan soomaaliyeed muqaadaraad kama shaqeeyo waddankan sharci darre kuma soo gelin sababtay uga baahnaayeen ma fahmin laakiinse lambarkiisa ayaan insha allah la xidhiidhi oo halkan ayaan inii soo gelin anoo waraysi kala duldhici doonee sidoo kale waxaan doonayaa halkan inaan uga tacsiyadeeyo walaasha hodan cabdiraxmaan oo aabbaheed maalintii shalay taaha ku geeriyooday caasimadda boorame ee gobolka awdal halkaasoo loogu sameeyey aas qaran maalinba nin baad soconaya haddana waxaan dul taaganay xabaashii abwaankii heesaagii halabuurkii aad taqiineen ee caanka ahaa cabdiraxmaan dheere ilaahay naxariistiina ha ka walaabiyo wuxuu ahaa addoon nadiifa addoon miskiin labuu ahaa addoon cidna waxyeelin buu ahaa addoon gacantiisa iyo afkiisa iyo carabkiisaba laga nabadgalu ahaa innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun geridu waa xaq oo qof kasta wuu dhiman doonaa cabdiraxmaan cismaan maxabe cabdiraxmaan dheere waxuu ahaa waa cabdiraxmaan dheere oo ka mid abwaanada soomaaliyeed sidoo kalena ka mid ah fannaaniinta soomaaliyeed
waxaan leeyahay hodan cabdiraxmaan iyo weliba marwadiisa aamine cabdilaahi samir iyo iimaan ilaahay isagana ha ka dhigo marti la jecel yahay gebagabadii bal waxaad ila eegtaan xildhibaanka soomaaliyeed iyo gabadhan reer somalilan ka soo jeeda wixii dhex maray hadda caawa muqdishoaan joognaa gabar meeshaan ka hadlaysa waxaan u malaynaa magaceeda maxay ahayd somalilan ka imid dhahaysa hibaaq waa mahadsan tahay hibaaqii adigii somalilan waxaan rabaa hal kelima inaan idin sheego caawa muqdisho aad joogtay xafladaad meeshaan lagu dhigay abaalmarinaa lagu siiyey abaalmarinta waxaa lagu siiyey soomaalinimo ay ahayd waxaad ku faantay dowladdeeda somalilan aad tiri jamhuuriyaddeeda somalilan jamhuuriyadda soomaaliya aniga somalilan kama dhihi karin laakiin reexamar ay idinka fiican yihin saas u ogaada aniga muddo somalilan haddaan tago waddankayga waaye waddan soomaaliyeed waaye laakiin muddo guddoomiye ku-xigeen baarlamaan waaye somalilan hadduu tago ani jamhuuriyadda soomaaliya haddaan idhaahdo waa lixiraamo ya laakiin waxaad ogaatiin reer somalilan in laga fiican yahay reer soomaaliyan ay ka fiican yihiin waxaan filayaa muuqaalkaa waa ila daawateen waa gabarh ka soo jeeda somalilan ayaa meesha iyadoo ka qodbadanaysa waxay tidhi jamhuuriyadda somalilan oo ku soo labacelcelisay haddaba waxaa ka daba kacay xildhibaan ka mida baarlamanka soomaaliya oo isaguna hadalladaa yidhi yaa khaldan ma gabadha mise ninka komantigaygu dhaaf asalaamu calaykum